waxaan ku guda jirnaa cashirkii jabniinka. Calaamadaha jabniinka. Lambar 1. Xanuun meesha jabtay ah. Macnaha calaamadaha jabniinka waxaa lagu gartaa sida jabniinku uu qarsoon yahay moogta. Intiisa badan jabniinku uu qarsoon yahay. Horta jabniinka dee lafta banaanka soo baxda kaas horta mid qarsoon ma. Laakiin jabniinka duu gudaha waa calaamadaha lagu gartaa lagu sheegaa. Xanuun meesha jabtay. Macnaha meesha jabtay zaid ku xanuunayso. Qodobkaad wuxuu yahay barar meesha jabtay. Meesha jabtana aad u bararaysaa. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dabacsanaan meesha jabtay ah iyo weliba matag. Meesha oo jabtana waxay noqon meel daciif ah. Sida u taabataba qofka cabadkiisa u baxay. Waxyaabo u dulqaadi karin. Teeda kale qofkana aad u matagaa. Waxaa heshiis ku jiro dhan baraanka soo saara. Okay. Gargaarka jabniinka. Horta sida loogu gargaaraa qofka jaba. Qodobka koowaad waa in la duubaa meesha jabtay oo laga ilaaliyaa nuuxnuuxsiga. Meesha jabtay horta in la duubo waa mar lagu duubo oo lagana ilaaliyo inay dhaqdhaqaaqdo. Qodob xiga haddii qofka ka jabo dhabarka waa in la ilaaliyo sababtoo ah jabniinka noocaas ah haddii qofku la jiido waxay keeni kartaa shock waxaana wanaagsan in la ilaaliyo qofkaas. Macnaha qofka dhawarka bafka yiri dharkan waxaa ku jira halbowlayaal oo qofku si toos ah maskaxda dareemaha ugu soo qaado. Waxaa kaloo ku yaal lafa yar oo saaran. Lafa dhalaal oo saaran. Marka lafaha caadiga laba mid ma aha dhabarka marka. Haddii wax jabaan qof oo jabo waxaa loo baahan si nidaamsan iyadoo dhabarka la ilaaliyo in loo qaado. Haddii si qaldan qofka loo qaado waxaa suurtagal ah qofka inuu waashto ku dhufto. Maxaa yeelay wax maskaxda la xiriiro waa laf dhabarka. Waxaa kaloo suurtagal ah qofka inuu dhinto. Waxaa kaloo suurtagal ah qofka inuu naafoobo oo qaybta dambe ay noqoto eber. Marka waxaa loo baahan yahay qofka si taxadar leh nidaamsan degan oo qofka xanuun ugu dareemi karin ama culays ugu dareemi karin loo qaado. Meesha oo ka jabo laf dhabartaan in loo ilaaliyo qofka. Qodobka saddexaad haddii jabniinku yahay mid furan oo dhiig socdo marka qofka meesha jabniinkiisa oo gaaro inuu dhiig soo daato. Macnaha lafta dee banaanka soo baxdo kale dhiigga soo daada sama. Waxaa laga rabaa oo dhiig ka socda lagu dhahay jooji dhiig oo nadiifi qofka meesha ka jabtay laftii banaanka imaaday ama waxaan qalay jabniinka waxaas qalaab suurta geliyay. Macnaha qofka waxaa loo baahan yahay inaad dhiigga ka xirto. Kawow habska dambeeya kawow isbitaalka baa lagu kabaa deel rabe horta dhiigga ka xir. Dhanka wadnaha jiraan laga xiraa dhiigga dhanka kale laga xiri maayo. Dhiigga sidiisa waxaa soo tuura wadnaha sama oo jidhka gaarsiiya. Halbowlayaasha wadnaha ka imaada si toos u soo gaarsiiyo jidhka qaybihiisa kala duwan. Marka dhanka wadnaha xiga ka xiray dhiigga.
intuu isbitaalka gaaraya dhakhtar ama kalkaaliye ka helaya. Qodobka afraad, geey goobta caafimaad ee kuu dhow. Markuu qofku jabniin soo gaaro waxaa laga rabaa isla markii inaad qaadid, maxaa yeelay meesha markii lacala ay soo gaarto jabniin uu soo gaaro laftaas waxaa laga yaabaa haddii meesha si dhaqsaa lagu geey waayo qofku waxaa suurtagal laftaas qaabkii ku jabtay inay ku reysato, hadhow dambena waa adkaaya qofka in la kabo. Marka laftu waxaa la rabaa inay ku reysato iyadoo kaban oo booskeeda haysato inay ku reysato la rabaa. See ugu reysan kartaa marka isla markaas oo dhaawacaas oo qoyan yahay ama dhaawacaas oona gaarin 24 saac habeen iyo maalin hadday dhaafto bas waaye 24 saac intoona gaarin waxaa laga rabaa isla isbitaal inaad ka gaarsiiso, haweenaha isbitaalkaas ama ha yaraado ama qof dhakhtaroo lafaha wax ka yaqaan aad ka gaarsiiso. farmashiyaha kugu dhow daageysa xataa wax suurtagala in qofku jabniin oo kabitaan inuu helo. waxaa kaloo lamid ah qofku markuu meel ka dilaaco qofku doo meel ka dilaaco oo meeshaas la dhayi waayo ama la toli waayo waxaa suurtagala qofta hilibkeedu banaanka yahay inuu saas ku reysto jirka, taasna waa dhibaato. marka waxaa loo baahan yahay qofka in si 24 saac gudahooda la geeyo isbitaal si qofka loo talo ama loo kabo. MB fiiro gaar ah ogow waxaa jiri kara infekshan marka meesha jabtay ay furan tahay oo aysan helin dhayid wanaagsan. meesha hadii la helin dhayid ama tuusin oo wasaqda laga ilaalin meesha waxay dhali kartaa cudurada kamid oo loo yaqaan infection. infectionkaasna waxaa laga qaadaa bakteeriyada hawada duuleysa, bakteeriyada carrada ku jirta iyo bakteeriyada faraha ku jirta, faraha bini'aadamka bakteeriya raacda, waxyaalahaas ayaa nabar ku dhici kara. bakteeriyadaas infectionkan waxaa lagu arkaa microscope-ka lagu arkaa iyo qalabka. marka qofka in la badbaadiyo loo u baahan yahay xilligaas oo kale. casharadeenna kale loola socdo.